so waxaan isku dayana waxaa waaye keliya inaan bishaan aan waqti qurux badan siino bishan December iyo isbuucan cusub wixii fursad ah noo macquulsan iyo journalkeeni bilaha ahaa oo November qaab noogu dhammaaday ayno intiina badan in yaraa joogtayso journalada qofkii aanan joogtaynin kulley wax keliya aan dhihi karo waxaa waaye waa inuu si ugu wanaagsan qof bani aadan ah mas-uul iskaga saari karo ama mas-uul iskaga saarta haddii aadan waxba joona aan sameyn keliya waqtiga ugu badan uu yahay how to buy how to sell xilliga la suuq la salgaray xilliga suuq la baygaray un jaaniskaaga ugu fiican u yahay kulley meel dheer kuma gaaraysid that's what I know sababtoo socdaan lahayn lix bilood ma dhaafna leysina waxyaabo jir waxaadan samayn karin oo aadan wadi karin cad ayaa jirto oo adiga laakiin iska indhitiri kartid laakiin inaad daily journal samaysid wax keliya tradingka kugu hayn karo wax keliya tradingka kugu hayn karo sidaas leeyahay so that's why marka aan rabo inaan intiin ugu badan isku dhiirigelino oo markii laga soo tago fursadaha maalinlaha ah in qofka mas-uuliyad wax la yidhaahdo uu qaadi karo aniga tradingka dad badan marka waa ku khasaarnay dhahaan mise 2 sanaa ku jira 3 sanaa ku jira weli waxba kamaanan keenin markay leeyihiin wax keli nideeda kusoo dhaca waxay tahay problemka dhanba ugu weyn aniga nafteeda aa soo maray ontan ugu badan aan maalin walba aan la tacaalno ugu adag aan ka salgaari la'sannahay waxaa waaye nafteenaana baran koob hore waxay tahay so naftii anigana loo dhiibay amaalada ahayd haddaana ka adkeen tradingkan mas-uuliyad kala leh so we have to responsibility aan qaadana horta bishii November haddii aad la socoteen intii tirade aa wada joogtaynay intii joogtay oo isla socona intii qof oo gadaal ka imaaday oo aanan barnaamijka la soconna waxaa weeyaan keliya inaan fahanno maxaa noo suurtagalay inaan 2 qodob iyo hal aan ka dhaho then aan kasii gudbaan inaan kusii daahin aniga bishan November videoyada ugu badan live-kii ugu badan live ahaan noocana dadna way soo galayeen live-ka dulqaad ay ku joogaan lahaayeen mise dulqaad ay ku joogteen live walba galab walba ay imaadaan lahaayeen qofna maalin oo nagu soo dhexdhaca then uu sii socdaa so waxaan xisaabsanaynaa marka dhalinyarta joogteenta leh xaaladahooda iyo sidaan ku bilaabanay November journal markaan bilaabayay waa tii aan soo sheegareeyay haddaa xasuusteed gurubyada yaa joogteen doona journalkiis oo dad badan ii soo qoreen qayb weyn ka mid ah aan socono intooda badan hadda aan wareysteen maasha allah meel fiican ay ka gaareen life journalka horta waxaan qaatay calculation ahaan haddii aan hadda fiirino as a number waxaan fiirin karnaa inay yihiin 19 trade okay some lots iska isticmaalay waa 43 lot aan isticmaalay isku dardar lotkii ugu badan waa 222 fursada ugu badanna waxay ka yimaadeen dhanka buyer fursadaha buyer ka yimaadeen fursadaha selka aad ay ugu yaraayeen okay fursadaha selka intaan qaatay dhan waa khasaareen markii laga reebo labada tiri waxaan qaatay 6 fursadood oo sell ah okay 4 ka mid ah waa khasaareen buy fursadahan qaatay bishan inta aan buy qaatay aan ku khasaaray oo fursad buy aan qaatay aan ku khasaaray daa fiirsid chatka de waxaan iska qoray ma guys just like waa wax live aan ku wada qaadan jirnay oo aan daily aan soo dhigi jiray iyada si dhaabhan aan soo dhigo mise live ahaan aan soo galo mise signal ahaan aan soo diro qaabun waa wax markaa recordkii idinka haddaad dib usoo fiirsiin haysiin okay December waa isla bilaabi doonaa so you have to ina hadda sii bilaawatid December so fursad aan buy qaatay aan ku khasaaray waxaa jirto GBP card anta fursad aan buy qaatay waan ku faa'iiday so bishii November waxaan ka baran karaa fursadda ugu badan oo inta aan ugu badan aan ka faa'iiday waxay ka imaadeen buy ka imaadeen fursadaha buy-ga ah ee ka imaadeen hal trade waxaa jiro marka
inuu TPC haddana SLC waa tii ugu dambeysay Eurocard aan wada qaadanay intii badan card GB midan qaadan sababta card GB jimciyaan qaadanay waa tii khamiis galab aan sheegay la xasuusid live-kaas YouTube ku yaala tan ugu dambeysay hadda aan wada xasuusano EURUSD iyo GBPUSD-na hal maalin la wada qaatay oo sorry meeshan waa Eurocard ma sorry meeshan GBPUSD ma waa I think waa Eurocard no not can't be GBPUSD أنا حسوستها waa Eurocard okay waa xasuustaa galab waxaan soo diray arbacadii inay ahayd rajeenaya markaan soo diray newsa soo bixinay aan filinayay inuu 10 saac bar soo baxayo oo uu soo baxay 9 saac bar si lama filaan suuqii laga wada saaray oo hal maalin aan sharxay xaalad iyo winter iyo waxsaas New York session xaaladda asaaska hadlaayay so waxaa garan kartaa marka intaan SL qaadanay bishani waa 6 SL iyo hal xabo khasaare faa'iido midna lahayn oo 0 ku kala baxnay markii laga jaro marka 19 hada tan TPSL ka aan ka jarna xataa waa 6 I think waa 6 SL then hal TP ku dhacday then SL ku dhacday oo macnaha half ECC then half kale hadana ayada ashatay markii laga reebo 7daasi 17 hadii laga jaro 12 so 12 trade full ku dhamay 12 trade ka marka mid waxaa jirta half ku dhamaaday marka waxa hay gaan xataa ani iska xiray oo weekend igu galay tan oo xataa weekend igu galay ma xasuusta maanan dhameystir marka qaar weekend igu gaaray jiro oo aniga iska xiray oo gacanteyda ku xiray so ay marka waxaan ku xisaabi karaa 12 trade oo faa'iido okay bishii ka horeysay I think October hadda November noo soo dhamaatay October tradeedeedu way yaraayeen saasay tahayna khasaaradeedu way yareen okay then bisha November iyo bishii la soo dhaafay okay October fursadihiina waxay ugu badnaa ka imaadeen October saleeyahay so waxaa garan kartaa marka journalka inuu kuu sheegayo trendy oo waxa jiray oo aniga aan ku tirigelin jiray oo hal bil loo hay aan ku tirigelin jiray iyo marka gardisu inuu hay usmeena inuu tirigelin fursad ugu banaan baa hayeen means after an fursad filaadin jiray so October aydan way yarooneed muxmeen khasaaradeen aad u yaray laakiin TPSL badna waxa u badneen trade laba xabo ay ku jiray so October waxaan ka qaadan karnaa 5 trade baan khasaarnay laba hadii laga reebo marka 3 waaye 3 toos u khasaarnay oo SL marka waxaan xisaabayaa tin aan buy sell aan oo waxba isiinin oo sidii iga saaray okay marka we have to inaan nidaam noocaas aan joogteeno so hadda waxaan qaadanaynaa marka December oo si fresh aan ku bilaabanayna make sure you have to inaan adigana kulley qayb weyn aan ka qaadatid hadda right now bil maalin cusub taariikh cusub oo bilaawtay saasay tahay already duplicated content saasay tahay already waxaan dhihi karaa aniga December trade ugu horeeyay oo haddan dul istaagi doona wasla analyze gareyn doona okay so marka November duplicate dhahaya information November yala isoo laabanaya so iska kila gareynaya kulli wixii u baahneen hal waxaan soo reebanaa marka hal position oo edit gareynaya bisan soo reebanaya so haddii adigan uu journalku sidan camal kugu samaysan yahay make sure waa inaad nidaam noocaas waqti u siisaa fursadaha maalinlaha so November xogteedii ayaan koobi dhahay so aydan delete gareynaynaa marka so marka waxaa keli noo soo haray hal column noo soo harayo aan ku qornay hadda right now GBPUSD so waxaan u qaadanay longa u qaadanay dadna EURUSD qaateen already waxaan ka helnay ilaa iyo hadda ku laabanaya waata trade-ka saakan si qurux badan u qaadanay waa mid aan early morning isniin aan trade gareyn jirin laakiin fursad marka arkay just was clear aad qurux badan so trade shuruudihii entry modelka SMC trade hadda halkan ka tuso oo aad marka u fiican yihiin kuwii kale hadda noo soo dhaw oo weekly ahna waan dul istaagaya laakiin trade-kii saakan hal mar hal iyo laba aan ka dhahaya dhalinyartii qaatay dadna EURUSD qaateen dadna GBPUSD dadna GBP card
so saaka fursad qurux badan aan bixay kulay dadkii la socdo dhalinyarta memberka iyo dhalinyarta kaleba oo aan wada joogno so trade kan waxaa xalayna dhalinyaro aan class practice la sameynayay waqtii aan isla falanqeynay ahayd haddaan wada joogtin dhalinyaro badan halka ay salaamaya then trade equal keys kan oo ah liquidities then manipulation ka link sameeyay oo trade ku qaaday kan oo ah yaa focus fiican asiisi then kanna entry kale oo ah so chartkin waa soo qaadanaya wixii su'aal ah oo aqabtiin halka igu soo qoro wixii hadal ahna waan isla meeligayna so kaasi manipulation kan oo ah waa trade saaka ah oo hadda already lagu kala baxay so GU entry-geeda kaas waa haddaan qaadatay let me know okay comment meeshan aan ku ogaado chartkin chart korteedu yaa isoo qor haddii aad qaadatay GU waa amazing trade waa so ay halkaasaan ka baahigareeyey okay halkaasaan ka baahigareeyey dad euro USD qaateen oo tagaa euro USD na explain garan doona GU tradekeeda waa kaas saacadu dhaqaaqay waa saak 3 saac subaxnimo almost 60 dib u dhaqaaqa okay euro USD ayaan qaatay yeah thank you so much Abdulqalib iPhone so euro USD dadka qaatay nidaam noocaas ay ku wataa euro USD bartaas ay taasha waa sin intii tii hore ku dhaqaaqday bay ku dhaqaaqayeen euro USD ayaan trade aad u qurux badan ayuu ahaa trade-yadaas dhaabiyadooda haddaan la socotin waxaan ka wada hadalnay khamiistii ee ay ku jirto card GPY oo trade-keedu uu kan ahaa aydan isla khamiistii ilaa iyo 70 abdi inkastoo markuu suuqa jimca haween la gaaray iska soo daatay ilaa saaka ay hoosta u daadanaysa so now marka journal xaalkiisa waa kaas waxaan ku bilaabayaa ani ahaan GBPUSD iyo GBP card oo hadda ii furan aydan okay oo groupka aydan soo dhigay dhanka member chartka oo aydan la same way sida GBPUSD u qaadanay aydan u qaadanay laakiin aydan ilaa hadda wax TP ah weli nooma gaarin waa sugeynaa waxay ku dhamaatan oo aydan la soo wadaagi doonaa okay so yaa marka let me know qeybt chartka yaan December isla joogteynayna journal codkii maxaa tahay codkii sir keliya bas waxbaa qaldan so يعني سؤال اللي ويجينا يا دنيارتا ديسمبر يا أصلي جوكتين أنا فرصة كده يا thank you هذا ديسمبر ديارتا هاي لمينو سببتها هذا ديسمبر مكبر ماله وحكي لك أكبر هدي دون تبحاول أنت صوتير ده قاعدني أنت سامباي دهني أنت سخسرني أنت ساسل دهني أوكي so أنت أصلا كم جري لهن حنوفي عن إن حد بلاوي ما أنت كو نفترض إن نحسب تجي by 2026 markii ku bilaabato bari at least account-ka waa in live ku ahaada hadduu ku socdeen group payout fiican samaysan so dadka sanadka cusub sugaya in uu bilaabo si ay isbedel sameeyaan lagu taasi cid ku ballan qaaday ma lahan so just maanta haysataa maanta focus na siin okay yani hadal kale iyo barnaamij kale sii gelin so intaas aan focus gareyno sida caadada ah oo ay wareysiin aniga DXY mar walbo focuskii balsiya inta dhaxday ani inay December journal joogtayso saasaan noo wada balane marka iska warhayn xaaladaha okay aad u mahadsantihiin qof walbo oo focuskiisu yahay inuu mar-uun suuqan guul ka gaaro ogow laakiin unit mas-uuliyad badan u baahan tahay mas-uuliyaddaas haddaad kasoo bixi kartid chatkan haleluuga qof walba u yaqaan okay laakiin mas-uuliyadda waa maxay mas-uuliyadda naftaada inaad ka qaadid oo ahayd ballantii inaad suuqan meel ka gaartid okay so haddii aan hal iyo laba aan ka dhaho lacagta loo yaqaano DXY-da isbuucan filashadeeda haddaan kasii hordhacno anagoon fiirinayno shuruudihii trendiga horta kii levelka loo socdo ani ahaan kana is leeyahay haddii mid hadda la taagan yahay aan laga laaban sababto kan kii level ma noqon karo waa inducement haddii suuqu inuu sameeyo ku fashilmo lowgiisa wuxuu noqonaya mar walba weak low inducement so inaad fahamtaa midka kale oo laga soo reject garay oo suuqu taw u sheegtay inuu jibiyo kan waa levelku mar walba DXY laga soo celinayo kaas waa mar isku dayday inay buy ka sii furto waa lagu fashilmay waa lagu laabtay waa lagu fashilmay hadda suuqeena waa sare okay kor wuxuu ka diyaariyay letter W is equal sare so kaas oo kale so 4 hour-ka haddii aan hal iyo laba ka dhahno
horta 4 hour jihadiisa waatii mar hore aan ka hadlay ani ahaan weliba hayahay waa dadku macquul maybe inaa adiga fikir duwan tahay laakiin 4 hour weliba hayahay sababtana wax kale maaha kani down trend waa haddaa xasuusatiin 4 hour ahaan okay so change of character ugu dambeeyay 4 hour halkaasoo ka dhex okay coach halkaasoo ka dhex so kani marka muxuu noo yahay kani wuxuu noo yahay 4 hour hayahay okay then waxaan dhan u jeedid oo ilaa saak ilaa asbuucii hore soo daadanahay correction wax so correctionkaasi markuu 4 hour yahay dhowr dhimaan ayaali halkan 4 hour ahaan loo fiirin karo oo hadda kan yahay haddii ay macquul noqoto high-gan waxaan siinaynaa new high okay so new high waa la micnaa trend 4 hour noo bilaabay halkaasi balse kana marka waa correctionkiisa so macquul ma tahay 4 hour kan inay waxaan dhan correction ahaayeen si marka trend kala bay loo furo taasi waa su'aal jirta oo hadda aan rabnaa isweydiinaan idinka so laakiin waxaan noo confirm gareynayo in suuqa halka uu ka laaban karo waxaan kalsooni siin karnaa inuu suuqa zonekan ka laaban karo haddaad trendiga si fiican u baratay market trend sida loo dhisa haddaad taqaanid waxaa garan kartaa 1 hour inaad janis siisid oo nidaamka ku socdaa fiirisid 1 hour kan halka ka cad inuu trend gooni yahay markuu hoos u socdo oo ah kan waa low kan waa low high kan waa low kan waa low high kan low high low kala sameeyo so ilaa 1 hour kan uu shift ka sameeyo oo coach ka sameeyo jihada 4 hour kama sii saadaalin karnaa sababta kalsoonidan ugu badan hadda waxay jirtaa inaan la jirsano 1 hour trendigan oo low high salka yaal dhalinyarta suuqa course dhigaa noqon haddii aan nidaamka wax u sharxa aadan fahansaneyn hayahay elo sababta nidaamka nidaam waa dhalinyarta life traders meeshan baa ugu talagalay so adiga haddii wax barashada aawodid casharadan waa free website-ka booqo step by step soo dul istaag casharadii soo baro soo back test garay level life trade ku imaan karti soo xaadiro just step by step fahamkaaga soo dhis okay then kani coachka hadduu noo dhaco kadib halkaa yaroo dhimaana ka helno oo ay noo suurta gashaba bishaan dxy bagan uu coach sameeyo halkaa dhimaana ka helno kalsooni waxaan qonaa 4 hourken inuu hayahay 1 hourken uu hayahay noqon karo adigoo marka trendiga saa u fahansan haddii nidaam noocaas aad ku talagaraysid make sure waa allah mustacaan guushaada way badanaysaa wiridka waay sababta trendiga xishmeynaysa then haddii coachkan aan la sameyn wax hadda halkan ka sheegnay aysan suurtagelinbo sababta suuqa anaga ma maamulno suuqa anaga saarana kama yeelano laakiin waxa hadda aqoonsanahay oo maanta la joogo 2 December ay tahay aan aqoonsanahay waa in kan uu sablaazoo yahay simple kan uu correction yahay intaasaan aqoonsanahay wax kala xigo in coachkan la sameyn doono waa fikir haddii ay dhacdo in 4 hour hayahay uu ahaa saas darteed loo sameeyo waxa halkan ka dhacin waa taqaanin waa distribution fees okay so that's marka waxaan u baahannahay haddii ay su-aasha ah in 4 hour trendiga hayahagis in la sii wada haddii macquul ay noqoto waa in coachkan la helaa haddii coachkan la waayo waxaan raadin hoosen waa kasii soconaa meeshaas euro usd aan kuu saartay euro usd horta key levelkii u dambeeyey korka ah way soo taabatay ustaad maamada camerada xiro dheh may maamada camerada sideeda ma soo qabanayso aniga dhankii video kuma jirto laakiin qofkii camerada u furan iska xiro sababta mar badana screen recordingka inaan ka saaro isku dayay video xiran hadduu video kuu furan yahay that's because practice-ga ku jirto okay allah mustacaan then kani marka waa euro usd hadda trade ah aan arkaayo nidaamkiisa aan maanta ka faa'iidaysanin laakiin xagee wax naga jiraan su-aasha waxaa waaye euro usd hadda fikir maxay ka qaadan karnaa tabti ay leedahay lacagta dxy-da unbay cidana la qabtaa anota euro usd waxaan qabay in zoonkan haddii maraxaasta اسبوعي هراء تحديث منه وهلك على السلك قاعدة أصلا key level waa la buuxin doonaa okay
اوكي انا حرق اوكي اوكي هقولها وانا اوكي اوكي انا حرق معها ما بدي وش جرين وانا kan aad u mahadsantiin chatkin halkan ugu yaala iisoo qoro wixii aragtaa okay so haddii xataa aan remove dhahayo qof oo lack of discipline iisoo sheega waan iska bixinayna taasaa muhiim noo okay okay waa ka xiray kameradaasi haddii wax kale aragtaan ila soo wadaaga okay so marka gbp euro usd xaalkeeda waa saas levelkaas sare ay hadda laga soo laabtay uptrendingii kaas waa la soo jibiyey nidaamka aan dxy-da ka hayna ayadana ka hayna okay nidaamka aan dxy-da ka hayno ayaan ayadana ka haynaa oo micnaheeda ay tahay hayaloogi forward halkaasaa laga soo jibiyey waxa halkan yaal waa forward low kan hadduu forward low yahay trendigan korkan u socdo anaga dhorka buy aan ka qaadanay oo ilaa halka aaday waa correction forward ah haddii 1 hour ka u digano waa trend gooni oo madax banaan seen ku garan karnaa marka inaan correctionkaas soo trade garayno waa hal nidaam waa in hayaloogi u dambeeya la soo jibiya oo kan ah mana dhow in la soo jibiyo kaas waxay u baahan tahay maalmo maahan wax hadda beri maanta la samayn karo marka aan iska adkaysan furseena bayga ah that's why the dxy-da haddii 1 hour loo haya la jibin waayo fikirkeena dan hay hanu ahaa so kaas waa anana hay okay so halkan hadda waxaa ka dhashay demand zone so waxaan sugaynaba waa correction current entry model aan ka diyaarino okay correction haddii demandkaas lasoo dhaafo demand kale kan kaa hooseeya kaas haddii lasoo dhaafo kan kaa hooseeya so make sure correctionka hataa wuu soo dheeraan karaa labadan marka midkii aad entry shuruud aad ka heshid ka qaado haddii labadanba lasoo jibi haddee waa change of character taasina waa taqaana sababta forward loo haysa okay then euro gbp limit nidaam noocaas ay wadataa inkastoo ay xoogo ay ka fikir duwan tahay sababtoo ah gbp usd xoogo waxaa ay nidaamkay u shaqeyso waa qaab ka duwan eurada marka haddii loo fiiriyo ayaga trendigeeda qaab waxaan xisaabaynaa markiska waxaan xisaabaynaa intaan nool ahaan ah laakiin hadda waa ay maxaan dhihi karaa trendigeeda hadda waa clean then halkaas waxaa noo yaala demand so expectation kan hadda waxaan sugaan in brief structure la sameeyo weli in la sameynin waa lagu fashilan yahay so new york sessionka hadda furantay ma kore usii wadi doontaa bas hoosaa loo soo daadin doonaa we never know laakiin haddii hoos loo daadiyo waxaan u baahan nahay correction kale oo entry model aan ka ilaalsano haddii maybe xataa ayay noqon karto in halkaa lagu soo celiyo oo selka ah then kadib miss by laga kaxeeyo oo naqul so gbusd aragtiyan waa un buy waxaa ka fiirsatid ilaa hayaloogan uu nool yahay last candle kan wiga ah ilaa hayaloogaas uu nool yahay waxaa ka fiirsatid waa buy so gbp kan ayadana sidoo kale marbaan isku day inaan hadday fursadda aydan la wadaago waan idan la wadaagay ayadan waxaa moodaa xoogo inay ka fursad ka fiican tahay lacagaha kale ayadana life ay noo tahay fursadaan ka qaadanay trend ahaan horta markaa fiirino ayada waa buy okay jihada trendka dhan waa buy waa kan suuqii hore oo kan ahaa inuu hay samee ku fashilmay asigaa marka dib loo soo jibiyey waxaana u jeedid xeeran jibnaan galab daadashadan badan ayagoo loo dan leeyahay liquiditygan waxbastaasiyaasha yaryarka in loo dhan lahaa marka 15 minutes mise 5 minutes u degatid waxaa garan kartaa qaabkay ku socoto nidaamka structureka u socoto in shuruudo entry modelkii ayna siisay sababtoo ah trendigii weynaa oo kan loo hayaysi halkaasaa laga jibiyey maaragta taas waxaa then kan liquiditygan kan shifta soo laabta halkaasaan ka qaadan aniga hadaya okay haddii markaan halkan ay kusoo laabato micnaheedu waxay tahay kana below structure noo noqonayo so wixii halkan ka dhaco hadda kadib ah waa just scenario 2 okay so waa trade hadda haddii ay macquul tahay aan ilaa galabta aan ka warhayn karno so waxaa idin soo dhigaya qaybtiina member chatka gbp card scenario 2
دي أي صولة وتوفر سودا سام قالنا أوكي سيناريو 2 أوكي so GBP كان أي هذا وصوله أيضا أي تاني لايف نوتا أنا هالكان سأكيد قاتل دي مركز أي صولة وتميل الحيتاي أنا هذا chance كلا فرصة كوع على كنا ينسيسن يورو كان دا أيضا عن حال إلا كده يورو كان أيضا 4 hour كي 1 hour كي إنك استخدمه nidaam wareersan ay ku jirto that's why aan dhahay shar dhexdaas lacagaha eurocan iyo GBP ka dadka trade gareeya patience badan u baahantiin haddii kale waa anytime daqiiqad yar lagu gaban karaa so eurocard hal inaa ka aamusa yaro xaaladeeda laakiin xoogaha markaa fiirisin just fair qaabkii u socoto sababta ah change of character ugu dambeeya halkaa usoo ka dhacay so كان حنا لولو دي السعودة هذو كان لولو هون أوركا إنتانو ليدستي وانا هاي أيضا جبنين هاي هوري أوكي فلسوني في عن then trending إنتانو كها أصير نفس كيس كوتش على وسو سمين أوكي والعكت يورو كات هذو كاس كوتش نقدر means حتى وحكو جرى مكسب لايزون كان مرة حلوة هذا correction حالة سعادة مثلاً taasi hadduu correction yahay entry model ma ka dhisi karnaa shuruudihii sir kusoo qaadan lahayn wax liquidity iyo nidaamo ma haynaanmay sababta aanan ugu degdegaynin waxaa waaye wax halkan yaal maartaa halkan yaalo darteed ayaa meeshaas kalsooni dari igaga jirtaa inaan sir u qaato lacagta mr eurocard meeshaan waxaas leeyahay waa macquul in lasii push gareeyo haddaa 5 minutes hadda aan kasoo laabtay oo ku laabtana wax liquidity uma jeedin wax structure shift uma jeedin so we need more patience dulqaad badan oo baahan tahay eurocard haddii aad trade dhisaysid aragti ahaanteyda ana waxaan dhihi lahaa sell unka reeb okay USD card haddaa iyadana labii halka dhaho USD card horta qaabkeeda qaab waxaan moodaa iyadana jihada sidii hore bilihii hore august ka horeeyey mise bilihii hore sida october camal ah ma aha waa xoogaha way ka yara wanaagsan tahay markaa fiirisid waana warka qaabka u socdo iyo si isku marba dhinac ugu boodayso xoogaha maxaa ku jiro question mark selkan saa usoo daatay jimci galab u ahaa okay haddii aan marka meel u raac aan ku tilmaamaa garan lahaysanahay qaabkan u analyze gareeyo markaan fiiriyo waxay ugu dambeysay aniga markaan ka war doonay kan inuu uptrend ah taas horta waa tii aan la socon isbuucii hore uu kana change of character ah kan marka uu low ahaa kan low ahaa kan low kan low ahaa kan low so hadda kan correction waa haddaan dhahno aan trade kasoo dhisayna aan ku kalsoonaano wax kalsoonida ii diidaya waxaa waa imbalancegan awood badan sababta anytime uu suuqa uu buy u jeesan karaa si uu zoonka kore at least usii buuxiyo imbalancegan haddii aan fikir kale aan dhaho bartan aan 5 minutes ugu deganaya halkan aan trade-ka dhisaya haddaan dhaho baawo waxaas leeyahay waa la qurux badan yahay sida hadda muuqataba entry yaray bixisay okay manipulation kaaga waa kan okay then kan waa shifter then sell kaaga waa kan okay so laakiin sababta u diidaya waxaa waaye trade-ka markaa qaadanaysid aragti dheer inaad siisida qurux badan oo trade shuruudiis dhammaystiray ma diidayaan in la qaato laakiin waxyaaba waxaa jiro red flagska iska cadbanaan balancegan oo kale ani ahaan it's not normal معقول إن الله لابطه anytime حلقة تايموي haddii lasii socdana waa macquul in zoonka la sii tago zoonka naga sii hooseeya price liquidity-ga boqolkii waa loo jiraa haddii xataa kan la tago oo hadda uu dhow yahay xataa tirid yaroo qurux badan hadiiba aad qaadatay shuruud walbo entry model lagu qaadan karay meesha taasho anigoo selkan u jeedo aan iska daayay aan GBP USD iyo euro USD waqti siiyey
لكن haddii maanta fursad aad soo raasatay wax waa heli lahayd saaka haddii aad soo kacday aan soo raastay marka USD-gaad ana qodobadeeda waxaan kusoo koobayaa horta jihada waa sell waxba buy aan la raadinin laakiin ha laga digtoonaado abnormalada imbalanceda ah in aan kasoo dhistiin ayagoo la buuxin okay taasi iska ilaali at least suuq 50% imbalance waa inuu buuxin haddii xataa uu halkaa gaari lahaa aniga ahaan net sellka waan soo qaadan lahaa meeshuu kasoo laabtay uu tirad kasoo dhisay waa meel low quality ah so aniga ma xukumi suuqa laakiin inta aan ogahay un baan ka hadlayaa wixii uu suuqa sameeyo just suuqa madax banaan tahay USD JPY ayadan xoogo waxaa moodaa inaan isbuucii hore tirad ka qaadanay laakiin wax suuqa wereeriyey waxay ahayd jimco galab dadkii suuqa joogay way ogyihiin waxa meeshaan ka dhacay xaaladda suuqa u galay ka JPY xaaladday gashay iyo tiradkano TB1 inta aan ka qaadanay USD JPY haddaa la socoteen ka JPY sanadito qaadan waxyaabo badan ah jimcihii isbedeleen laakiin hadda aragti ahaan 1 hour kan jooga waxaa moodaa USD JPY hataa inay jihadeed bedelatay wixii hadda ka dambeeyo fursad inay sal noqon doonaan maadaama midka hadda nagu soo sokeeyo uu yahay IC candle wax laabanayana is leeyahay inay yihiin just correction wixii correction kan dhaafa oo entry model aan ka dhisi karna waa gooni laakiin haddii aan suuqaan fursad aan ka raadinayo GBP USD ani waxaan ka raadinayo sell haddii IC candle kan stabilizer kan la qadarin waayo uu kala kaa koray kuwaasa oo macquul ay tahay somena soo push kale kadib halka ka soo daato so who knows no one qofku mana aniga laakiin maxaa shardi noo ah trend halkeen u raacna halkeen intiri ka dhisna wax noogu muhiimsanana anaga waqti gelino antaas so ani USD JPY fursad waasa ka JPY la qabto salamid ah oo ayada si fiican analyze gareeyay ayada oo ay la fiicnaatay coachka waa new high oo 1 hour ka ayna okay kii levelada laga soo celiyayna waa mid ku aad u sareeyo aniga qorshaanteeda waxaan qabaa wixii hadda ka dambeeyo ka JPY USD JPY fursad insa laga raadiyo 1 hour loo hayna kan 1 hour loo kale new high no bilowday bas du new high hay marka kalsooni oo break of structure aan qaadana ma hayno ani hanteeda hadda IC candle kan soo degi lahaa waqtaasi di correction yar halkan ka helo maadaama beri noo wada joognaa waqti qurux badan waan qaadanaynaa in ani fursad waasay so ka JPY USD JPY kulli aragtidaasaan ka qabaa so GBP kana markaad noogu soo dhow ayadana waan u imaaday kalsooni oo intrigii ayaa noo imaaday so haddii marka fursadaha noocan oo kale aad ilaalin kartid oo qaabkii u shaqeeyaan aad waqti siin kartid adiga dadaalka wax kale oo ku hubo ani hal mid waa qofku ka focus badan yahay haddii suuqa ay jilbaha u dhigtoonaya in wax suuqan ka keeno is aaminay naftiis aaminay oo naftiis kalsooni siiyey wax kale aan dhahay hal mid waa qof kaloo adiga u baahan tahay ma jirto oo inuu ku siiyo kalsooni ay naftaasi inuu qofka ku siiyo aniga life oo ku soo gali karaa oo ku dhiirigelin karaa oo ku bushkareyn karaa oo ku sheegi karaa laakiin adiga bahdaan diyaar ahayn nidaam aan aniga kugu caawin malaha لازم wax kaliya hadda isleeyahay waa intaasi wixii kaloo soo kordho suuqan arrin ahaanna waa in la soo wadaagi doonaa waxaa noo balanay live kan iyo tomorrow xiga insha Allah assalaamu calaykum dee wax su'aal ah aysan jirin halkaas aan ugu baxayaa